waa dhacdo aan in badan laga warhayn oo maanta soo shaac baxday dad badanna ka yaabisay. Ku dhowaad 40 sano ka hor dil dhacay ayaa soo shaac baxay iyadoo qofkii dilkaa geysta aysan jirin wax baarid ah oo lagu sameeyey balse iskiis isku soo bandhigay kana codsaday cafis eheladii qofkii uu sababtiisa lahaa. Cabdinuur Maxamuud Diiri oo horraantii 1983 miyiga deegaanka Xiindheer ee gobolka Galgaduud ku dilay marxuum Cabdiraxmaan Weheliye. Dhacdadan ayaa lagu soo bandhigay xafiiska culimada iyo waxgaradka islaaxa iyo horumarinta ee Muqdisho oo ay isugu yimaadeen labada ehel ee labada dhinac marxuumka la dilay Cabdinuur. Gudoomiyaha xarunta Sheekh Cabdulaahi Sheekh Cali Weheliye oo loo garan ogyahay Sheekh Cabdulaahi Barakaad ayaa ka hadlay dhacdadan iyo siday xafiiska ku soo gaartay. runtii mahad weyn ayaan Allah weyn u celinaynaa raxmaanka ah raxiimka ah nicmooyinka badan noo galay aan soo koobi karin ay ka mid tahay nicmadan hadda aan u fadhino waafajiyay toobada walaalkeen dhibaatada ay ka dhacday sheekhana Sheekh Nuur jazaahullahu khayr baan leenahay asagana hawshan nagala soo qayb galay nabadoon Cismaan Nuure Tooxow oo asagana hawshan qayb weyn ka qaatay khayr badan Allah ku abaalmariyo walaalkeen Ciise Cabdiraxmaan Weheliye Sheekh Ciise oo runtii la dhigi karo waa deeqsi asaga iyo dadka ka dambeeyaba waa deeqsiyaal weeye deeqsiyaal kuramaa weeye Soomaalidana waa sida loo sheego dad badan oo sidaas waa laga helayaa ninkii maaragtay naf iyo shaydaan intuu la dagaalamay ilaahay toobada waafajiyana waa geesi laftirkiisu geesi weeye geesinimadu waa noocyo badan tahay taasaa geesinimada qiimaha leh taasaa ka mid ah marka dhammaantood aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin baaqa marka sida halkan culimmadeenaba ay ka sheegtay akhyaarta hadashay wuxuu ku socdaa dadka dhiman ee dhibaatadaas aan ka soo laaban ee nool fursad weyn inay haystaan ayaa maaragtay lagu baraarujinayaa fursadda ay ka faa'iidaystaan ilaahay subxaanahu wa tacaala fursad buu siiyey fursaddaas ay maanta ka faa'iidaystaan sida sheekheena hadda xadiiska uu noo sheegay ku jirtay qofka xasanaadkiisii iyo wuxuu soo shaqaystay baa laga qaadaya qiyaamaha markaasaa qof kale la siinayaa waana maalin khatar ahoo yacni qofka xataa hooyadii dhashay uusan u ogolayn hal xasano aabbihiis uusan hal xasan u ogolayn oo ambiyadiiba ay leedahay nafsi ay leedahaba maalintaa khatarta ah dhibaatada weyn ay jirto haddii xasanaadkaagi la rarto khasaarada tii ugu weyneed waa taa weeye khasira adunya waalaakhira wadalika huwa alkhusraan almubiin qoladu alla yiri weeye marka inaan iska ilaalino oo maanta fursadaan haysanaayo aan toobad keenno fursadda ka faa'iidaysano dadka Soomaaliyeedna sida la sheegay waa dad deeqsiyaal ah oo gob ah qofkii maarta weli lama sheegin nin soo toobad keenay oo lagu adkeeyay anu maan maqal dad badan baan maqlay oo soo noqday wanaag ayay la kulmeen xaqiiqatan marka ninkii marka dhibkaa qabaa wanaaggaas baad rajaynaysaa shaydaanka iyo soo horay kugu sii fasaadkaaga kugu sii madax taaginoo ilaa aad ilaahay hor tagto adigoo gacan ku dhigla ah oo sida markaa nusuusta ay sheegayso qofkii la dilay oo dhiiggu ka daadanayo oo kuleetiga ku dheggan kii dilay ayaa ilaahay horgeynaya subxaanahu wa tacaala yaa rabbi sal-u bimaa qatalanii ilaahay bal weydiin midkan wuxuu ugu dilay waxaa ku hadlaysana markaa ma jirto waayo shalay markii adduunyada joogna shaydaan iyo naf baa ku qaaday maantana wax qiila iyo wax aad haysataa ma jirto xujo ah waa sida un dhibaatada la sheegay unbaa meel kugu sugaysa in xasanaadkaaga la qaato in marka dambena dadkii dhibaatada u geysatay dembigooda dusha lagaa saaro jahannamo lagugu tuuro walciyaadu billaah marka arrintaas aanu dhammaanteen ka fejignaano ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii uusan dhiig gelin nicmo weyn buu haystaa ilaahay ha ku mahadiyo nicmo weyn buu haystaa laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinih maa lam yusib daman xaraaman ayuu yidhi nebiga sala allahu caleyh wasalam ruuxa waasicnimo diintiisa ka suuli maayo ilaa uu dhiig xaaraama ku dhaco faidaa asaaba daman xaraaman balaxa oo kama qaala sala allahu aleyh wasalam yacni waa banjarayaa eber buu noqonayaa wax tabcaanaho iimaankiisa u lito ayuu noqonayaa qofka markuu dhiig uu galo xaaraam ah marka hal is ilaaliyo saa darteeda waxaa arkaysaa qofka markuu dhiig galo wuu ku sii soconayaa iimaankiisiyaa baaba'ay marka wuu sii wadayaa marka yaa dhibaatadaasuu sii wadayaa walciyaadu billaah Sheekh Nuur Cali Jaamac oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed isla markaana ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa sheegay in Cabdinuur uu yahay geesi maadaama uu si bareer ah u qirtay dembigii uu galay 40 sano ka hor. alxamdulilah rabbil caalamiin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله إلهي بام هذا إسكاله أعمال بدنا لقبتا
kulamo badanna dadku way iskugu yimaadaan laakiin kulamadu kala khayr badan waxyaalaha ugu khayrka badan ee kulamadana waxaa ka mid ah kulamada islaaxa iyo laba qofoo walaalaa ama laba qabiil ama laba kooxood oo walaalaa oo shaydaan ka dhex shaqeeyey lagu hagaajinayo nabigeenna suubanna sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay ma iniin sheegaa wax ka khayr badan salaad sunnaa sadaqo iyo soon wuxuu yidhi waa islaaxu daatilbayn dad walaalaa oo dhexdooda islaax la dhigo waxuu ka khayr badan yahay ilaahay agtiisana looga jecel yahay salaado sunnaa soon sunnaa sadaqaad sunnaa kulli ilahay agtiisa waa looga jecayl badan yahay waa camal aad u weyn waxaa xiise gaara laakiin dhacdadan u yeelaya geesinimada iyo dhiirashada cabdinuur maxamuud diiriye tooxow oo runtii la dhihi karo geesi qofkaasoo kalea la yidhaahdaa taas oo ah sidaad maqlaydeen sheekh cabdulaahi cali weheliye khayr badan allah siiyo oo akhyaarta wanaagga iyo gebangebaynta iyo islaaxan ka soo shaqeeya ka mid ahaa in cabdinuur ilaahii weynaa subxaanahu wa tacaala qadarkiis horay uu qadaray shaydaan inuu ku riday qalad ah qof nin walaalkiisa inuu dilo markii uu dilayna kadib uu ilaahay cabsidiisa daraaddeed ayadoon dadka laga oqoon oo ninkii uu dhalay hadduu ag marayo uusan dadka ka oqoon qof banu aadana oo haystaano uusan jirin in uu is yidhaahdo maalintaad ilaahay hor tagto oo aan dirham iyo diinaar lagu daynbaxaa jirin tol iyo qaraaba ku garab istaagana aysan jirin maantaas in laguu qabsado maantaa ka roon adduunka haddii xataa laguu qisaasana cadaabka aakhiro iyo cuquubada adduuna roon cid ilaahay maahane aadmiyo owayadoosan jirin inta soo dhaqaaqay oo raadiyey ehelkii ninkaas iyo carruurtii uu dhalay ayuu u yimid ilaahayna wuxuu ku soo aadiyey qofka hadduu khayr go'aansado ilaahay ma hoojiyo dad khayr lah ilaahay ku soo aadiyey oo waxa weeyaan ciise cabdiraxmaan weheliye oo ah shiiqa halkaas fadhiya oo wiilkiisii a ninka la dilay ayaa ka noqday wiilkii uu dhalay ninka la dilay wiilkii uu dhalay weeye sheekh ciise marka raggii oo dhaxaltooyada ahaa ama carruurtii uu dhalay asagaa oday u noqday asagaa mas-uul ka noqday waxay noqdeen dad wanaagsan oo akhyaar ah oo waxa weeyaan walaalkood qalbi aad u furan ku soo dhoweeyey ilaa arrintii ay ku dhammaatay walaalkii oo u diyaarsan haddii la qisaasayana in la qisaasto haddii diyo laga qaadana diyo laga qaado haddii la cafinayana la cafiyo in waxa weeyaan asagoo mukaram aho karaamaysan la cafiyo wixii asaga ilaahay sabab uga soo dhigo ilaahay karsiiyena uu baxshay waa arrin aad u weyn waa arrin aad u weyn oo runtii farxad weynna leh sababtoo ah ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay qof muumin ah qofka kas u dila 5 arrimood inuu leeyahay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima nacuudu billaahi minha ilaahiyaan ka magangelaynaa ilaahay wuxuu sheegay qofka qof muumina kas u dila in uu leeyahay abaalkiis inuu yahay jahannama inuu ku waarayo cara alle inay ku dhacday naxariista alle in laga cayrinayo laga fogeeyey cadaab weynan rabbi ku tilmaamayna lagu abaalmarinayo waxaa rabbulcaalamiin noo tilmaamay qofka ilaahay hortaga maalinta qiyaamaha asagoo ku raran dulmi dad uu dilay dad uu dhacay dad uu xoolahood qaatay dad uu caayay oo cirdigooda ku xadgudbay in uu maalintaas qofka asagoo dulmi dhabarka ku sida uu ilaahay hor yimaadaa inuu hoogayo waqad khaaba man xamala dulma ilaah wuxuu yidhi waxaa hoogay oo khasaaray qofkii dulmi iyo gardarro dusha saartay saas daraaddeeda nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam ilaahay noogu soo diray adduuniya aakhiro saan u liibaani lahayn ayuu yidhi xadiiska saxiixa man kaana lahu madlamatun liakhiihi min cirdihi aw shayin qof alla qofkii waxa weyan qof walaalkiisuhu uu ku leeyahay xaq oo dulmi u geystay ama sharaftiisu wax ka sheegay ha noqoto ama shay kale xoola uu ka qaatay ha noqoto dhiig uu u geystay ha noqoto falyataxallal minhu adduunka intuu joogo ha ka cafis dalbo ha isku soo dhiibo maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qabla anlaa yakuuna dirham walaa dinaar intaan la gaarin maalin aan lacag iyo dahab iyo xoolo midna aysan jirin in kaana lahu camalun saalix ukhida minhu haddii uu camal saalixa samaystay salaaduu tukaday towxiidkiisii soonkiisii sadaqadiisii waa laga qaadayaa dembigii uu geystay qadar le'eg aa laga qaadayaa markaasaa qofka u geystay la siinayaa
wain lam takun lahu xasanaatun ukhida min sayi'aati saaxibihi faxumila calayh hadduusan xasanaad lahayn ama xasanaadkii dad kale qaatayna qofkii uu dhibaatada u geystay dunuubtiisiyaa la soo qaadayaa qadar la eg dembigii iyo dhibkii uu geystay markaasaa qofkii qalad ka geystay dusha laga saaraya markaasna waa miduu nabigu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam qofka mufliska ahi cayrtaa qofkaas inuu yahay oo wuxuu yidhi ma taqaanan mufliska markaasaa la yidhi waa qofaan lacagna haysan badeecana haysan nabigu wuxuu yidhi maahan kaas ummaddayda muflis waa qof aakhiro yimid asagoo salaad buuro ajar u haystaa salaad soon sadaqo khayraad uu sameeyey laakiin qofkaanuu caayey qofkaanuu dhaawacay qofkaanuu dilay qofkaanuu maalkiisii qaatay dadkiyaa fayl soo gala qofkaan xasanaadkiisiya qayb laga siina kana la siina markaasa iyagoo dadkii fayl ku jira xasanaadkiisu dhammaanayaan wuxuu isku halaynayuu moday aakhira inuu la hortegayo waa dhammaadeen dunuubtiisiina meeshaanay taallaa xasano loo miisaamo lama arko dadaana weli taagan mana jirto qofkii wax ma haysta ordaha taga markaasaa dadkii uu dulmiyey sayi'aadkoodi inta la soo qaado qayb ka mid ah oo ilaahay cadliya ayaa jaangoynaya dhibku u geystay ee la-egta inta la soo qaadaa dusha laga saaraa jahannama layskula tuuraya nacuudu billahi minha marka arrinta noocaasa waa in ilaahay weyne aan uga toobad keenno oo uswa xasana dayasho wanaagsan cabdinuur maxamuud ilaahay khayr badan ha siiyo adduunka karaamo iyo ciise allaha ku nooleeyo duriyadiisana kuwa dayibiin allah ka dhigo qoyska aabbahood la dilay ayaa goobta ku sugnaa iyagoo si dareen leh uga hadlay dhacdadan sannado badan ka qarsooneed sheekh ciise cabdiraxmaan wehliye oo ah wiilka ahna wakiilka walaalihiis ayaa madasha ka hadlay magacayga waxaa la dhahaa aniga ciise cabdiraxmaan wehliye awowgay weliba wehliye geesooda loo aqoon jiray aabbahayna cabdixiiray yaa la dhihi jiray dadku saasay mujtamaca iyo dadka aan la degno iyo qaraabadu ay noo yaqaanaan xilli laga joogo taqriiban 38 sano 1985tii iyo aabbahay iyo laba adeeryaasheeya iyo nimaan ilma adeernahay iyo laba nin oo kale qaraabanahay yaa xoogaa yani dadku xoolaha lumi jiray xoolay raadsadeen waxay u raadsadeen dadka deriska qaybo ka mida walaalaheen reer maxamed camal xaggooda iyo u raadsadeen annaguna waxaana la yidhaahdaa reer xaaji salaamaan qaas ahaan reer maxamed rooble dadku waxbay iska degdekanay jireen jahli iyo haddii la kurinay dadka waxaa ku jiray waxyaalo maaragta yani aan sidaan maantay fursadda la haysto iyo jaaniskan diinta lama haysan yay raadsadeen dakano nin ka maqneed oo nin aan 10 oday kala tirsanaa uu dilay yaa raggaas loo soo weeraray markii la soo weerarana 3 nin oo aabbahay ka mid yahay oo adeerkay aabbahay la dhashay oo da'dii ka mid oo ka mid yahay yaa nin kaloo qaraabanaha meeshii lagu dilay adeerkay kale oo aabbahay la dhashana waa la dhaawacay nimaan ilma adeernahana waa la dhaawacay wixii dadka raggii meesha aaday hal ninaa wax fiyo ka baxsaday nasiib wanaag raggii muddo yaa la joogay annaga wax kamaana noqon shaksi kamaana noqon laakiin famiil ahaan iyo shuf ahaan waa u maqlaynay mar hadda yani laga joogo bishii hadda sanadkan hijriga bilowgiisa muxaram yaa waxaa noo yimid in la yidhaahdo cabdinuur maxamuud diire toxow wuxuu yidhi ninkii cabdi wehliye anaa si qaasa u dilay isagoo dhaawac ah yaan dilay anugu gooni aan u dilo oo gacantaydu ku baxay dhaawac uusan u dhimanayn u qabay markii anuu ugu baxay waxaan rabaa inaad arrintaas ama iga qasqaasataan ama ay cafisaan ama weliba xoole ma lihiya haddii aan dadka wax ka soo helo qaraabada hadda ii dirtaan diyana intaan noolahay wixii aan heli karaan keenayaa sidaasuu na soo gaarsiiyey annagu tirada waxaan ahayn 11 qofood hal qof aa naga dhintay carruurna kama tegin weliba nasiib wanaag oo agoon hadda uu ka tegey oo annagu aanan mateli karinu ma jirto oo sakiiraa intayadii kale waa noolnahay intii afkooda anoo ku hadlayan waxaan horta bal qasqaas waa laga cafiyeye diyaan kaa rabnaa isku kaana keen odayaalna ii keen odayaaluu ii keenay uu ka mid yahay nabadoon cismaan waxaan ku ballannay halkaana xaafiiskaana isku qaabilnay halkaan wuxuu yidhi ninkaasaan ahay haddaad ninkaas tahay waxaan rabaa inaad iqasqaasato anna waxaan qasqaas waa laga cafiyey maanta wixii ka dambeya horta qasqaas iyo dakano kama baqaysid adiga iyo ehelkaaga iyo owlaadaada midna qasqaas nooga baqi maysid diyaan kaa rabnaa adugu waa naga tageen odayaashii waa noo yani wada xiriiri jirnay hadda dhow iyo waxay noo keeneen
lacag yaroo samarsiisa oo qarin mayne 10 kuna annaguna intuusan noo imaanba waxaan go'aansanay waalidkii iyo ilmihii iyo dhammaanteen inaan ninkaa cafino liannahu aabbaheena noo soo noolaan maayo annagana maanta wax nagama maqna aabbana waqtigiisuu ku dhintay annaga iyo asaga markii la fiirsana asagaa dhib qaba oo kurbaysan inaan annagu kurbadiisa siday u yaraan lahayd aan ka qayb qaadanno ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi culimmadina waa joogtaaye walkaadimiina alqayda walcaafiina can innaasi wallahu yuxibu almuxsiniin inaan ninka walaalkeena cafinno annaguna aan caradayadii horaaban haddaan qabnay ahayd naga ba'do cisxaan aan samayno ugu dambayntii cabdinuur maxamuud diiriye waa la cafiyey balse qoyska ayaa dalbaday inuu bixiyo magdhow cabdinuur ayaa tilmaamay in loo baahan yahay qof kasta oo ku kaca falkiisa oo kale inuu u yimaado dadkii uu dhibka u geystay islamarkaana cafis u weydiisto arrintan oo ah dhacdo ugub ku ah dadka Soomaaliyeed balse go'aanka uu qaatay cabdinuur ayaa dhiirigelinaya dad badan oo horey daano u kala gaartay waa tallaabo weyn oo muujinaysa iscafin issaamaxaad oo ah waxa diintayna suuban inagu boorinayso cali maxamed jaale astaan hidaaya ninkan la yiraahdo cabdinuur maxamuud diiriye aad iyo aad u nasiib badan yahay nin nasiib badan waaye anugu adeerkiis baan ahay nabadoonkiisana waa ahay runtii mana maqal inuu nin dilay weliga ima maqal waxaana laga joogaa 40 sano dhow ayaa laga joogaa ilaahay baa waafajiyey baadiyow ka yimid xamar baa ugu yimid jira loo keenay oo yiri ninkaasaan dilay ninkaasna waxaa la sheegay inuu ka dhintay 10 caruura iyo 2 dumar ah inuu ka dhintaana loo sheegay waa uu raadsaday markuu raadsaday wadaad la yiraahdo Sheekh Ciise oo duca qaba oo nin shiikh ah ayuu soo wakiisheen shiikhiiba wakiishay waa u nimid markaan u nimid qasqaasoo isku dhiibay qasqaastiina waa ka cafiyey ma garatay xoolow ku cafiyey xoolo diyaana lama siin oo diya maanta oo xaqa lama siin laakiin sawirsiin baa la siiyey waxaanu digaynaa ummadda islaamka oo gacanku dhiiglaha nin walba ninkuu dilo waa ogya qaraabadiisina waa yaqaanaa waxaan leenahay dadkaas ha isdhiibeen qaraabadii ha isku dhiibeen waxaan adduun waaye waana laga tegaa bismillaahi raxmaani raxiim 38 sano mar laga joogo ayaan igu magac yeeshay waa joogi waayey kuleyl iyo balaayo alla igu furay ugaan joogi waayey waxaan idhi aakhire nina kaagama horeeyo waa aan imid waxa weeye raggiyaan raadsadhay ninkii aan aya wax iga gaareen ilmihiisiyaan raadsadhay waa aan helay nima fiicana alla ka dhigay ilaahay jannada ha siiyo iyaga iyo ninkan dilaba ilaahay jannada ha siiyo ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa gacan ku dhiiglow intaad nooshahay inaad fursad haysato inaad ninkaad xaqa ka qabtay oo weli damka ahay aad isu dhiibto ama ha ku dilo ama ha ku deysto ama ha ku gato xoolihiisaad ka mid tahay aakhire waxba kaagama horeeyaan waxaan ku gebagabanayaa culummada meesha joogta si walbaba ha ahaadeen ilaahay jannada ha siiyo haddana jannada allah siiyo ciise jannada allah siiyo ninkii aniga wax iga gaarin jannada allah siiyo intaan noolana sadaqa inaan u baxshaan rabaa ilaahayna inaan u baryo nabadgelyo ammaano